hay-adda nabadda iyo horumarka ka shaqeysa ee Kasiima ayaa waxa ay xaafadda Farjano ee magaalada Kismaayo ka bilowday dhismaha barkada ay hay-addu sheegtay in laga heli doono biyo nadiif ah oo caafimaadkooda la ilaaliyay. Arrintan ayaa waxa ay imanaysaa iyadoo dhawaan magaalada Kismaayo uu ka dilaacay cudurka shuban biyoodka oo inta badan loo aanayo inuu ku yimaado biyaha wasakhaysan oo la isticmaalo. warkan waxa inoo faahfaahinaysa Saabiriin Sahal Maxamed. xilli dhawaan deegaanada Jubbaland oo ka dilaacay cudurka shuban biyoodka ayaa waxa hay'adda nabadda iyo horumarka ee Kasiima waxay xaafadda Farjano ee magaalada Kismaayo ka bilowday dhismaha barkad lagu shubi doono biyo la nadiifiyay oo la ilaaliyay caafimaadkooda. waxa goobta ay hay'adda Kasiima mashruuca ka fulinaysay ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka socda maamulka degmada Kismaayo iyo mas'uuliyiinta hay'adda Kasiima. ugu horeyn waxa goobta ka hadlay Aadan Faarax Gaarane oo kamid ah mas'uuliyiinta hay'adda Kasiima waxa uu sharaxaad ka bixiyay barkadani oo ujeedka ay ka leeyihiin. waxaan halkan maanta ka fureynaa mashruuca Just Jobs qaybtiisii baraagaha biyaha loogu dhisay dadka ku nool Kismaayo degmada Kismaayo afarta xaafadooda Kismaayo. waxaan halkan ka qareynaa maanta oo nagu bishaareynaa dadweynaha ku nool xaafadda Farjano in halkan loogu dhisayo baraagtaas oo ay biyo filtreesan ama biyo warshad lagu soo sifeeyay lagu shubi doono oo lagu deeqay ama macnaha qiimo aad raqiis ah oo aan aqliga galaynin lagu gadi doono jirgaankii 4,000 oo shilin oo lacag Soomaali kama badan doono 20 laha waxaan filayaa biyaha warshadaysan noocaas oo kale ilaa 20,000 oo shilin ayaa lagu gadan jiray laakiin maanta waxa lagu helayaa 4,000 oo shilin waa biyo warshad soo martay macnaha filtreesan. gudoomiye ku-xigeenka dhanka maaliyadda ee degmada Kismaayo Cabdirashiid Cabdi Ibraahim ayaa waxa uu u mahadceliyay hay'adda Kasiima isagoo sheegay in dhismaha barkadani looga maarmi doono isticmaalka biyaha aan la sifeyn ee laga soo dhaamiyo ceelasha afka banaan. waxa sharaf noo ah oo aan aad u soo dhaweynaynaa biyaha biyo-gelinta loogu sameeyay xaafadda Farjano waaxda halgan qaybtan maartay centerka ah oo biyaha ka dhaansanayaan xaafadaas. waxaan aad ugu mahadinaynaa hay'adda Kasiima dadaalka badan ee ka wada magaalada sida mas'uulaha iyo nadaafadda iyo ceelasha maartay biyaha hamaha ay u sameynayaan. waxaan leenahay dadka in ay ka faa'iideystaan jaaniskaas loo sameeyay ee biyahaas laga keeni doono warshadda caafi oo aad u filtreesan oo nadiifsan sida ay noo sheegeen in ay ugu soo xiriirinayaan halkaana loo sameyn doono qof xanaaneeya. waxa kale oo u mahad celinaynaa ninka asagana waqafay booska isaga qof shacab iska lahaa oo isagana waqaf u bixiyay isagana aad baan ugu mahad celinaynaa in lagu daydaan mudan oo dadka oo dhan ay waxyaabaha danta guud ah ay maartay waqaf ku bixiyaan aakhari adduunba ay ka faa'iidaan. ugu dambeyn agaasimaha waaxda faydhowrka ee wasaaradda caafimaadka Jubbaland Xiire Maxamed Xirsi ayaa bogaadiyay dhismaha barkadani oo uu sheegay in qayb ay ka qaadan doonto kahortagga cudurrada ka dhasha nadaafad darrada. hay'adda Kasiima oo kamid hay'adaha washka ee magaalada Kismaayo ka shaqeeya ayaa mashruuc haddana halkan ka fulinaysa. mashruuca ay ka fulinayso waxa weeye barkad qaadaysa 45 foosto oo biyo macaan oo warshadeed lagu shubahayo. biyaha warshadii wixii laga soo siisanayay wax ka yar dadka laga siinayo wax 2,000 ilaa 4,000 u dhaxeeya la sheegay jirigaankii laga siinayo wax tar weyn weey. annaga waxaan dhibayeen hadda dhibka nagu hayo waa AW biyo sifaysan baa meelan galaba raadinaynaa. marka nimankaas waxay dhaheen biyo sifaysan baa barkadan ku soo shubaynaa oo warshad laga keenay dadweynahana wax raqiis aanu kaga gadaynaa. waa horumar weyn aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa iyadoo waa ku amaanaynaa hawsha ay qabteen. waxay sheegaan waliba tan kaliya ma inay 4 meelood ka dhisi doonaan 4 barkadood khayr Allah siiyo waa wax weyn oo wax qabada biyaha iyaga keenaya barkada iyaga buuxinaya adu jirigaanku maad la imaanaysaa wixii warshada laga siinaya wax ka yar waa laga siinaya. cudurka shuban biyoodka oo haatan fara kulul ku haya magaalada Kismaayo ayaa waxa la aaminsan yahay in waxyaabaha dhaliya qayb ay ka tahay isticmaalka biyaha caafimaadkooda aan la hubin ee laga dhaamiyo ceelasha afka banaan.